oo wuxuu yiri dagaal hadii aad bilowdo xilligiis xilli aan ahaynna waa jab haddaad ka hor bilowdo xilligiis xilli ahaynna waa jab kale sidaadaradeed ascab ma fi alqaraar wuxuu yiri huwa qaraar alharb waxa ugu adag go'aan ah oo dagaal la galo waa go'aanka dagaalka lagu qaato Puntland waxay ku guuleysatay inay dhabarka ka goyso maanta argagixisadu Puntland kuma leh xaadan ijtimaaciye inay taaraadiyaan marka maxaa u daliila markii la weydiiyay hal hum kufaar bal min al-kufr farru magaala ma gaalama ka soo carreen hal hum munaafiqiin ba inna munaafiqiin la yakunu allah illa qalila muxuu yiri marka ikhwaanuna baqaw calayna waa walaalaheena nagu qooqay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين dhegeystayaal caaway waxaan idin wadnaa barnaamij aad u qiimo badan barnaamijkaas oo aynu ku gorfayn doono dagaalada lagula jiro argixisada dalka Soomaaliya barnaamijka waxaa marti inoogu ah ustaad Cabdi Fataax Nuur Axmed oo ku magac dheer Ashkar ustaadku waa aqoon-yahan daraasadiisa jaamacadda wuxuu ku soo qaatay Jaamacadda Afriqiya Kuliyatul I'laam wa Saxaafa ماجستيركي wuxuu ku soo qaatay علاقات عامة ama xiriirka guud ayuu ku soo qaatay دكتورانا wuxuu ku soo qaatay التخطيط الاستراتيجي qorshaha ama mataqaana istaraatiijiga ayuu ku soo qaatay jaamacadda Umdurmaan sidoo kale doctorku wuxuu ahaa muddo 7 sano ah wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Puntland wuxuu kaloo soo noqday agaasimo ayuu soo noqday waa qoray buugaag runtii tiro badan oo luqadda Soomaaliga Carabiga ku qoray caaway marka waraysi ayaanu leeyahay doonaa xaaladaha ka jira Soomaaliya iyo dagaalka hadda argixisada lagu jiro soo dhaw Fataax waan dhawahay maxamed waan dhawahay aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii inaad waraysi ku saabsan la dagaalanka argixisada lagu jiro Soomaaliya aad la yeelato ustaad Cabdi Fataax طبعا waxaad soo ahayd wasiirka warfaafinta dowladda Puntland sidoo kale agaasimo ayaa soo noqotay marka waxaan rabnaa bal inaad si guud nooga warantid dagaalka lagula jiro argixisada oo ka socda geeya Soomaaliyeed hadda waan la soconaa dhammaan geeya Soomaaliyeed waxaa ka socda dagaal lagu cirib tirayo argixisada bal dagaalkaas inaad nooga sheekaysid oo fikrad guud naga siisa ayaan u baahnaa waad mahadsan tahay maxamed waraysigan aad la yeelanayso runtii aad baan kaaga mahad celinaya adiga iyo Sultan Films oo run ahaantii igu soo dhaweysay ama igu martigelisay inaan waraysigan bixiyo aad baad labadiin u mahadsantihiin markii aan taa ka imaado mahadnaqa kadib Soomaaliya saan la socono waa saad u sheegtay dagaal ayaa lagu jiraa argagixisada dagaalkaasu waxaan u arkaa inuu yahay baraarug ama dareen bulshada Soomaaliyeed ee dareentay in la gaaray xilligii ay iska dulqaadi lahayd heeryadan dulfuushay oo gumaysiga ah gumaysi waa ka daran yahay argagixisadu waa ka daran yihiin sababtoo ah waxay baabi'inayaan jiritaankii ummadan waxay ku ciyaarayaan damiirkii ummadan waxay banaysteen dhiigoodii waxay ugu gulxaarayaan in Soomaaliya ay noqoto goob ay ku hardamaan dalal shisheeye runtii waan bogaadinayaa baraarugaas soo ifbaxay oo ka bilowday dhinaca koonfurta Soomaaliya ay dowladda federaalka Soomaaliyeed ku idlaysay dagaal dabadeedna haatan dagaal culus oo guulo fara badan laga soo hooyay argagixisada laga wado deegaanada Almiskaad runtii arintaas waxaan u arkaa arin guula good wasiir mudane wasiir saan ogsoonahay waxaad soo noqotay wasiir ayaad Puntland ka soo noqotay sidoo kale agaasimo ayaad ka soo noqotay marka bal waxaad nooga warantaa dagaalkan ay Puntland kula jirto ururka la baxay Daesh bal wax nooga tilmaan haddii aan wax kaaga tilmaamo dagaalkani wuxuu yimi xilli baahi badan loo qabay inuu yimaado tusaale ahaan haddaan kuu soo qaado waxaa jira qoraa Chinese ah Sanshu baa la yiraahdaa ninkaasi buugiisii wuxuu noqday buug dunida oo dhan ay daraasayso ma aha in lagu daraasayo kaliya dagaalada xataa dhawaanahan waxay bilaabeen reer galbeedku in falsafadaha suuqeen
iyo istaraatiijiyadeed ay xagga dhaqaalaha xataa u adeegsadaan wuxuu yidhi buuggiisaas waxaa laga soo dharaandhiriyey 36 qaacido oo loo bixiyey qaacidooyinka buuggaasi uu ka kooban yahay guud ahaan qaacidada ugu horeysa waxa weeye dagaal intaadan bilaabin ka hor qorshe oo wuxuu yidhi dagaal haddii aad bilowdo xilligiis xilli aan ahaynna waa jab haddaad ka hor bilowdo xilligiis xilli ahaynna waa jab kale sidaa daraaddeed ascab maa fi lqaraar wuxuu yidhi huwa qaraar alxarb waxa ugu adag go-aan ah oo dagaal la galo waa go-aanka dagaalka lagu qaato ani waxaan aaminsanahay daraawiishta puntland iyo ciidamadeeda qalabka sida oo uu ku hagaayo hogaamiye ugu yahay madaxweynaha dowladda puntland Saciid Cabdullaahi Dani in ay qaadeen dagaal istiraatiiji ah xilli loo baahnaa daqiiqadna kama aysan hordhicin daqiiqadna kama ay dabdhicin aniga saan u arko sababtoo ah maxaa taas u daliishanayaan u leeyahay waxaan u leeyahay waan la soconnaa jabka isdaba joogga ah ee nimankaasi lagu hayo waxaan arkaynaa hadi goor guulo fara badan oo ciidamadayada qalabka sida ay ka soo hoynayaan dagaalka ay kula jiraan argagixisadaas maanta dooxa ah waan la soconnaa bulshadu siday iskugu gadaantay dowladdoodii waan la soconnaa sida yacni shala ugu dambeysay oo aan wararka aan ka arkaynay in argagixisadu ay jabeen ilaa loo dhacay godod ay ku lahaayeen deegaanadaas calmiskaad ay u yaaleen zaadkoodii oo u yaalay laga helay baasaboorro iyo dukumiintiyo fara badan marka anigu waxay ila tahay dagaalkaasu dhabbadii guusha waa la hayaa waxaasan u baahannahay in aan dib isku qiimeyn isku samayno in aan ka baaraan degno meel kasta oo ay wax ka imaan karaan in goddolool kasta oo noo muuqdaa aan isku dayi karno inaan awoodno mudane wasiir waad mahadsan tahay bal waxaad nooga warantaa saan ognahay dagaalka puntland ay kula jirto argixisada hilaac ama dagaalka ciribtirka lagu ciribtirayo daacish hadda wuxuu galay ama uu bartamaha kaga jiraa marxaladii saddexaad yani marxaladii kood waa laga soo gudbay tii labaadna waa laga soo gudbay tii saddexaad baa hadda lagu guda jiraa puntlandna waxay gaartay guulo la taaban karo ayay dagaalka ka gaartay marka waxaad noo sheegtaa maxay tahay sababaha u sahlay puntland inay guulahaas istaba jooga ay gaarto wax kale uma sahlin waxa aniga ila tahay haddii aan qiimeeyey dagaalka in la galo waxa ka horeeya qorshe dagaal qorshihii marka uu hagaago ayaa dagaalkuna hagaagi karaa waxa u sahlay puntland baan oran karaa guulahaasi kow in ay puntland dagaalkan isku diyaarisay waad ogtahay oo waa dagaal baa la qaadayaa dagaalka naf baa go'aysa naftu waxay u baahan tahay meel markii ay go'do ama ay dhaawacanto lagula tacaalo oo lagu dabiibo isbitaallo maydaani ah baa laga sameeyey goobaha dagaalka ku socdaan waa qorshayaasha wanaagsan ay puntland ku guuleysatay ay gaadhay ayuu ka mid yahay zaad buu u baahan yahay ciidanku zaadkiisana waa loo diyaariyey ciidanku wuxuu u baahan yahay xaaladihiisa culus in lala tacaalo daaweyntooda maxay ka qayb qaadanaysaa taas waxay ka qayb qaadanaysaa moralkii ciidan iyo ciidankii dagaalamayay askariga dagaalamaya ee dhimanaya asagoo og abaalmarinta ugu weyn uu heli doono inay tahay shahaado ilaahay uu siin doono asagoo dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisaba difaacaya misana markuu og yahay in la daryeelayo kuwoodii dhintay kuwoodii dhaawacmay wuu ku dhiiranayaa marka inuu dagaal galo maamuloo dhanna uu ku jiro dagaal kama hadho waxa la yidhahdo xaafis motivation kama soo hadho motivationkaasi laba ugu sarreeya waxaa motivationkaasi ugu qaalisan dunidu ay samaysaa waxa weeye shaqaalaha way abaal marisaa oo abaal lacageed bay siisaa mid kalaa marka daba taal waad mahadsan tahay naftageedu motivation ka mataa waa la ogaaday waxay dardar gelisaa shaqo kasta oo jida marka waxaan isleeyahay haddii xagga maamulka casriga ah ee falsafada maamul ee dunida maanta lagu dhaqaaqno ciidanku moral ahaan buu dhisan yahay ciidanoo dhanna moral kama soo haro taas horta waa mid weeye intaa dabadeed waxyaalaadka guulaha keenay oo asaasiga waxaan u malaynayaa inay laf dhabar ka yihiin argagixisadu sidaan la soconno marka ay meel qabsadaan oo tagaan waxay sameeyaan waxay raadeen xaadin ijtimaaciya oo ah martigelin bulsho meeshay martigelin bulsho ka helaan ayay ku dhaqi karaan falsafadooda kutubtooda markaad akhriso oo aad yani baadho siday yihiin iyo say u fakaraan baad ogaan ka dhaa waxay nimanka xaqiiq ahaan yihiin
القاعدة لما كان اللي هذا وكون سجال سيدتك الأساسي وهرمود كأها أسامة بن لادن كده من أيمن الظواهري أو الله بدأ ومريك كودلي دجال لي قالين فربضن دجال هذا سمركا دت كان جهادين تلي هذا أرجع حسده هي قلا رعضة مركا وحاجنا منهج كتبيد ودقن أرجع حسده أركي صورنا ودين تيادي صوبانات أصقل دن له أخري دين تينا وصوبانات دين وحيها توصن لكن آخر سكودا وحيها آخر سقلدن يعني كتبته ودقن وحكم ذا كتاب العمدة في إعداد العدة أو سيد فضل نيري هذا مصاري وقري مركز آخر صاد وحفهم يساق فكر كيرجع سود وفكره أو وحش جاءه أو ضليس كأه أو ديجي عبيد لماذا له بعد أركيسان دبادد وادم بقى أو السعودين أو أي القاعدة مركي برجي التجارة العالمي لبدي دار أمريكانك أي قراء كم إذا قراء قار كم إذا يبحين غزوة منهاتن في أري يبحيناين غزوة بيحتى يبحيناين مكتة غزونا ما هنا وعوير كو قاعدين أمريكا أبوها فلسفته صوب حي أركتيات وحكم إذا فلسفة اللي يرهده إدارة التوحش ماملك عبسده ماملك عبسده وحقوقه تما ضدك هرتا إن العبس قليل أو عبس لغو مامله مركب بقان بالا مالك ربي أمسين تاس مركب وحكفر عم فروع وحكم إذا فروع كفر عم حدان شوكة النكاية وحكوضان عدو فوق وايو القاعدة معناها وحال هذا المنظمة العالمية لمحاربة الأمريكان والصهاينة بينهم أو لسوق بهذه القاعدة عدو فوق وحكم من عدو قلوب بينهم الأقرب أولى من الأبعد سيادرات الدجال بيبلشوين كمسلم كأه وواحد بيأنجلين كقاضان أيوة كأمسن حكومته هذه المرتدين وشقية قال عدو كون انتقال الهاي اللوب maxay taas u sameynayaan waxaas oo dhan waxay raadinayaan waxa xaadan ijtimaaciye Puntland markay maxay ku guuleysatay Puntland waxay ku guuleysatay inay dhabarka ka goyso maanta argagixisadu Puntland kuma leh xaadan ijtimaaciye inay taa raadiyaan marka maxaa u daliila dib u baara oo meediyada loo laabto al-shabaab maalintii ay ku jabeen Puntland suuj iyo garimaal way hadleen bulshada maageen oo dhaleecay waxay bulsho gaala taageer ah weeye qabyaaladii dulootay baabi'isay anna maxaan u arkaa cunsurka qabiilka ah al-unsur al-qabali inuu asal u yahay dawladnimadeena waa ibn khaldun soo sheegay dawlad maxay ka bilaabataan asabi qabaliya ilaa ay ku dhamaanto maxay aqdi ijtimaaci hadda aan naqaan oo ah heshiis bulsho social contractiga Puntland guulaha ugu badan ay gaadhay waxa u asala waxa weeye bulshadii oo is haysata sidaa daraadeed Soomaaliya hadii la rabo nimanka argagixisada ah in laga sifeeyo waa in laga shaqeeyaa is haysadka bulshada awoodda bulshada waa in la awoodeeyaa waayo dawladnimada yada sida ibn khaldun buu sheegay arab baan la midnahay arab meel kama jirna anagu badaawa ku asal leenahay dawladnimada siyaasiga ah dawladda ka horeysa waxa weeye waa dawlad qabiila qabiilku markuu adag yahay oo is haysto dawladnimadu way jiri kartaa marka taasuna waxa weeye guulaha Puntland ay gaadhay bay kamid tahay in waa la socotayo dadku sida hagar la-ida leh ay ula shaqeynayaan ciidamadooda mudane wasiir aad baa u mahadsan tahay dabcan waxaad ka sheekaysay waxa u suurtageliyay Puntland inay ku guuleysto ama guulo hordhac ay ka gaarto dagaalka lagula jiro argagixisada waxaad base kaga dhigtay xaadan ijtimaaciya bulshadu is haysato oo ay rawaabid al-cashaa'iriya is haysiga qabiilka iyo dadka qabiilka isku xiraanshay isku xiran yihiin taas inay keenayso in la soo dhaxgal karin oo aan dad laga qoran karin okay dhinaca kale hadaynu fiirino koonfurta oo kale ma oran karraa arrinta noocaas oo kale kama jirto taasoo sababtay in markaas awoodaha ay argixisadu ku leedahay meelaha qaar koonfurta kamid inay ziyaado waa xaqiiq weeye hadalka ashaygiisu waa xaqiiq waan aaminsanahay anigu Soomaaliya bulsho ahaan waxa la rabaa bulshada in la saaro aqrin bulsho mar alla iyo markay dawladnimadu ka tagto laga bilaabo kalkacayo sida koonfur u jihaysato waxa yaraanaya is haysadkii bulsho waa wax dabiiciyan jira oo meesha jaal waxa la oran karaa mujtamacaadka beeralayda ah waa mujtamacaad lagu tilmaami karo inay mujtamacaad mustaqilla daatiyan madax ahaan banaan oo beeralayda oo mujtamacaad katuum ah wax qarsada weeye taxamulo weeye halka reer guuraagu ama xoolo dhaqatadu ay yihiin mujtamacaad saraaxa badan
oo aan waxba qarsan isku xiran xoolaha ay haystaan ka bixiya mag ka bixiya kaalo ka bixiya sooriyo yacni deeqsinimo dhextaal wax bixin dhextaal marka waxaasoo dhan baa loo ilayn karaa waan oran karaa yacni ayadoo aan jecelahay rajeynayana Soomaali meel kasta ay joogto ha joogto cirifka koonfureed ama kan ugu shisheeyay ee waqooyi ama Puntland ama gobolada dhexe meel kasta Soomaali joogto in ay ka guuleysto argagixisada misana يعني قابك الدولة فدرالك أهي ولا تعاشي أرنتاني ما هن أرن كيني كده إني يقولك قاعدون الناس صابته مجتمع ما هنصنع شيء مجتمع ترابط اجتماعي كده يسكرنا بشكل حيو سيدا كوا وقويجا يكوا بنتنا وقد حيو أكله ومجتمع كل سنة يعني أن ما أردت أوديسان كرسنين واحد هندسة اجتماعية أو حتى أي تي دي مرقة خدها اللي قليو بشكل استوحى لقاب اسمه بلده qaabka ula dagaalanteen waxaan arkaa qaab inuu yahay aan sax ahayn mid buuna sax ku ahayn kow qabiilkii bay hub gacmaha loo galiyay oo taas arintaasi ma qabin in qabiil hub gacmaha loo galiyo waxaan qabay in qabaa'ilka la kiciyo taxshiid lagu sameeyo waxa weeye la wacyi geliyo loo sheego in khatarta argagixisadu ay leedahay misana hubka laga ilaaliyo هاد هوب كلا قبائل كلو قلنا يانا أنا دولة بدن بان ما أردت أركي أدونك كوا كمان وحبان كبرت بوجهي السودان وكله كون صغار بورس ديتن سجال كي مركي ثورة الإنقاذ لمك الأورنجري عمر البشير هو جميع وهاي لوريين تلك وحي بلا بين لان كتر سنوايو عيد ما حد بقر سنة جيران عيد ما السودان مؤسسة عريقة هو رجال بكون فرت السودان والسعودية لان قوني أو عيد كوسي ماذا الله بلا بي واللي هذا قوات الدفاع الشعبي والدفاع الشعبي حتى معلمين الجامعات إنه لقى كجري جري أو سراكيل سركاها جرنالا كاها كورنيلا كاها مركو الله بهذا بلو يرنجري دجال كيقبل الجري لكن محاوي واعيا صحوي وحلين تراتيبية والرتبة العسكرية بيليهن أو سرقال حجان سدعين كل سنة وكله واعيا رسمي أو ليقان هوسي ماذا إذا ماذا قلب كسيدة الدولة بنتلان الدولة السودان جمهورية السودان هوسي ماذا بيع هاين مركا ما دام إساءة هايين والدجالمايين لكن ما حيقول أبوريهم طبيعة الله أبو روح تهاي طبيعة العالم وايو ضلكي بقى بقايون وكلاقو مركب محل سميه عيدا إسل ضلكي يقان أنه حريصا كرا يقان ضلكي لما عامل كرا متكلم واجدي وواحد جري كونفورت السودان وحي هايد ما عرفتي وحمال قلنا دولة داش الشيء وكرسم بأبناين نكون مركا هدي فلسفة عيدا كصح وحال سكوا ذي مركا سان أنا جو أركو عيدا نمائيو دعوة اسمه برصعدة إن رسالة اللي جالس وايو توتر لبابية لما ربين مركا هدي دولة دا أما جمهورية دا فضل على الصومالية وحي السمين كدي عيدا ما اللي قوات الدفاع الشعبي ciidamada iska caabinta argagixisada ee shacabka ah ee hoostaga wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidamada qalabka sida oo la tababar maraan yaqaanada britki yaqaanada dagaal tartiibna leh mushahar qaataan waayo ciidanka maanta hubba u dhibtay dagaalka waa dhamaaday bari yaa sii waday dagaalkii arintan waxa la rabay in loola tacaalo approach kale ka duwan sida dowladda federaalka loo timi mudane wasiir aad baad u mahadsan tahay dabcan waxaa jira factors kale oo arintaas Puntland guusha ay ka gaartay Daesh aan oran karno sabab ay u yihiin waxaan oran karnaa waxaa kamid ah asbaabta Puntland inay iska lahayd khibrad hore oo ay kula dagaashay argagixisada ama ha noqoto dagaalkii hore oo lala galay 92 itixaad waxaan oran karaa waxaa jira asbaabo kale oo keeni kara arintaas guushaas Puntland oo ay kamid tahay Puntland inay iska lahayd khibrad hore ay kula dagaalantay argagixisada ama dadka mataqaana markaas fikradahan diiniga wato dagaalka isticmaalaya ama cunfiga isticmaalaya waxaa kamid ah dagaalka ay la gashay Itixaad 1992 dagaalkii ay la gashay maxaakiinta labtirkooda dagaalkii ay la gashay 2006 dagaalka hadda u dambeeyay Suuji iyo Garmaal ahaa oo ay la gashay al-shabaab markay badda dhankeeda soo mareen oo ilaa 1000 ciidan ay dhanka ka soo galiyeen Puntland dagaal adag bay la gashay 2016 baan jeclaa marka waa asbaabta keeni karta yani bulshadu inaysan noqon mid laga faa'iideysto maadaama ay dhagarta nimankaas ay fahansan tahay waa asbaabaha aan oran karno dadka Puntland wacigoodu macnaha wacyi sareeyo way u sareeyaa taas marka keenaysa in laga faa'iideysan
inta haddaan kaga gudubno asbaabta keentay Puntland najaxeeda waxaan rabnaa inaan guda galno bal waxaan rabnaa inaad wax nooga iftiimiso halista ay ku hayaan Daacish gayga Puntland sidoo kale waxaad noo sheegaysaa sida looga takhalusi karo ama sida loo soo afjari karo hadda maadaama marxaladii u dambeysay ay marayso seebaa loo soo afjari karaa ama loo ciribtiri karaa inta ka gudbin ka hor Maxamed waxaan u laabanayaa su'aashii hore ay ahayd maxaa keenay sababaha fashalka ma oran karaa baad tiri in ishaysan la'aanta bulshadu ay u tahay sabab asaasi ah sabab kale aan kugu darayaa marka jirta sideedaba eray bixintu hadday qaldanto يعني نحرك أدو سعنتنا مسح مايو صحيح أري بحنتها بقلدن بقى أنا وآمسنا هيبا أيضو أنا هوريك وعررتي أنا جعلها والله هي Soomaali waa isku mid argixisaan dhibteedu waa mid dhibaatada ay ku hayaan Puntland bay ku furta Soomaaliya ku hayaan labada dadna waa mid waa dad Soomaali ah oo muslim ah weeye misana qaabka loola tacaalay anigu talahadan ka bixin lahaa magaca naftiisa xataa waa qaldan waxay dhaheen la dagaalanka khawaarijta halka computer magaceedu u saxan yahay oo leeyahay la dagaalanka argixisada waa sax waanu u iman doonaa khawaarij lama dagaalamayo ereyga waa inaan saxnaa yani hays baa ahayd cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer dawadii lama gaarayo khawaarij waa madhab fikri ah afkaarna hub lagulama dagaalamo afkaar baa lagula dagaalamaa khawaarij markaan aan nahno yaa khawaarij gormaysan bilowdeen taariikhiyan waxaan xasuustaa hadda ka hor allahu naxariistee دكتور أحمد حاج عبد الرحمن أيام ورئيس السمي بوق عن قرية حواراتي عنوان وحاوها القراءة المتأنية للتاريخ الإسلامي كفير البحر المعضلات أقرنت لا أقريو سويالكي ومضان إسلام كأيه وحي حل أطهي دباتوين جلنا نحكو حال إنه هرت خوارج يا قورمي صوبحين وحي صوبحين معركة الصفين كتب معاوية علي ودحيسي علي بن أبي طالب خوارج تمحويري وكمل كل ويدي هل هم كفار بل من الكفر فروا ما قال ما كسو عرن هل هم منافقين بأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا محويري مركا إخواننا بغوا علينا ووالله لهم نقوقي خوارج مركا هو فكر وين إن من كاس كدقال ما يصومالي وأرجع سده خوارج لقط الماما وحي أنا قاعد دقنتها معنا هان إن من كان لقرحي سيل لقرحي خوارج وحسن كل شيء هو فكر عد لا ضرر كذا مالي خوارجته محي أمسين خوارجته أمسين مرتكبة الكبيرة قف قدام وين جيستا زنيستا وحد له قف له أما زنيستا إنه يهي كافر مرتكب الكبير إنه كبائر أنت أنقانه أما خمر عبا إنه كافر يهي بأطقان حق النجا أهل السنة والجماعة هي أنا أنقان هذو توبت كانوا قف كاسي إن إلهي حقي سويا العمل كيس معتزلة أو أي مذهب فكري كلا أهنا أي أطقان منزلة بين المنزلتين لابو ضحية مركوا وفلسفة فكريد خوارج خوارج مركوا وأنا ندر الرأي مجتمعات بأكملها وأنا ندر الرأي بنقول أنا ندر الرأي مجتمعات دون كان كرسن أفريقيا دون منه بريق أفريقيا زنجبار مذهب والله رقم خوارج إباطية المكان اللي يجيهن وخوارج عمان ومذهب كذا وخوارج مرتكب الكبيرة الكافر مركا وانا دولة جرا وانا سيستم جرا لا ما تدق على مكرو مركا خوارج إن خوارج لغو شيء ودم بيجي ولا خفيف في أي قلين كوانونا خوارج ما أنا محانو أركا مركا أنا محانو أركا وحير برتان كان حكرا وحيران من السنة ما في عالمي وانا واقعا خوارج نمكري لغو المدر الكرو خوارج دي فكر كلي لا قال خلاص وانتهى الأمر dood fikra galina waayo kuwa khawaarij oo Soomaaliya ku nool aan hubsidana way jiraan aan waana qan khawaarij waa ka fog yihiin sida lagu tilmaamayo hadda lagu sheegayo nimankani maxay yihiin nimankani sida eray bixinada adduunka oo dhan مثلا anaga dawlad muslim oo carabana Soomaaliya hadana aan manhajkooda qaadano dagaal maxay u yaqaanaan at-tadarruf al-anif xaq jirnimada hubaysan qaab gaar ah la macaamilaan marka maadaama ay hub qaateen yaa la dagaalamaya waxa la dagaalamaya ciidamada qalabka sida oo tahay shaqada ay qabtaan inay dawladda ilaaliyaan nimankan maxay ka soo horjeedaan bulshada iyo dawladda ka soo horjeedaan nimankan maxay yihiin majmuuca mukhadaraadka ganacsata weeye mukhadaraadka ka ganacsadaan way isticmaalaan
marka maxaa la isku dhafaaya waxaa la isku dhafaaya la dagaalan xag jirnimo hubaysan iyo la dagaalan jariima munadama organized crime in Soomaaliya falsafada ay la timaado way laakiin inta khawaarij baan la diriraya waa dagaalka oo majaraha laga leexinayo وما صنت وحير بان ربا inaan arinta aad sheegtay khawaarijta aad tiri fikir ballaaran oo macnaha ideologiyad aad tiri waxay qabaan qofka ma taqaanaa kabeerada la yimaada inuu kaafir yahay waxaad soo qaadatay madhabka ibaadiyada oo ka jira meelaha Cumaan oo kale nimankaas kulay anu waxbaan ka akhriyay kutubtooda ibaadiyada oo kale kaafir binicmati Ilaahi bilii kaafir gaal caadi ma ahan nimcada Ilaahi ku gaaloobay leeyihiin marka ayagu ma qaba in dhigiisa la banaysta ma qaba laakiin nimankan hadda aan arkayno oo daacishka iyo kuwa la midka ah waxaan ayaga ahayn ayaga waxay u arkaan inay gaala yihiin macnaha dhigooda iyo maalkooda inay banaystaan ay rabaan marka arinta noocan oo kale maadaama uu yahay fikir xag jir ah oo dalka iyo dadka dhibaato ku ah fikirkan ma leeyahay juduur ama jirid uu kasoo farcama ma iska leeyahay marka waxa la dhalayayo boogta dusha lagama dhayo inta la jeexo gudaha loo dhaca oo la dhayaa marka ma jirta arintan yani juduur uu leeyahay oo quudisa ama xidido quudiya fikirka noocan ma jiraan oo bulshada hadda Soomaaliya markaynu ka hadlayno uu leeyahay ha ma inkarayna taas waayo xididadaas waxa koow ka ah oo quudiya waa jaahilnimada way quudisaa aqoon darradu iyo jaahilnimada wadata macnaha way quudisaa xaaladda amni dalku uu ku sugan yahay oo aan awoodnayn way quudisaa inta ka sokow waxa quudiya xag jirnimo u dhalad ah fiiri kuwaas hubbay qaateen banaan bay galeen kuwa gudayowga ku jira magaalada jooga oo afkaartaas faafiya waxaasna aaminsan kuwaasna way quudiyaan marka maxaan u arkaa waataan ku leeyahay haddaan si aan ula dirno argixisada oo dhibaatadeedana u yareyno waa in aan la nimaanaa dagaal isu dheeli tiran dhinacyo fara badan leh dhinac dhaqaale leh dhinac amni leh dhinac fikir leh dhinac horumarineed leh waa inaan la nimaanaa markaas aan guulsan karnaa argixisada okay ma oran karnaa asbaabaha waxaa ka mid ah dadka qaybo ka mid ah inay mararka qaar laga yaabo inay dulmi tirsanayaan ama dhibaatooyin tirsanayaan taasoo ku xambaari karta inay soo waaridaan ama dool ay ku keenaan afkaar kale ma dhici kartaa taas si kastoo xataa u dhici kardho dow iyo sharci midna uma leh wax kastoo aad tabanayso waxaa jira duruq ixtikaam qaanuuni waxa la yidhaahdo oo ah inaad xukunkaaga si silmi ah oo nabad ah aad ku cabiri kardho dasaatiirta dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo dastuurada dowlad goboleedyada kuwa kale anigu waxaan ka sheegaa horta waa been waxaan muddo ka shaqeynayay oo aan ahaa nin siyaasadeed oo ku dhex jira dowladda Puntland xoriyad tacbiir baa jira qofka ra'yigiisa cidna ma caburin karo waa sababta aan ku leeyahay yani qofna ra'yigiisa lagu ma caburin qof ra'yigu waa cabiri karaa maalinta aan orkanahay waa goorma maalinta hub qaato uu ugaal igu sheegay aniga maalintaas waa culowni waa kala tagnay laakiin maxaa jira bulshada sida jirku xanuunku ugu dhaco ayaa bulshadana xanuunada looga ilaaliyaa waa inay jidhaa faafreeb inuu jiro weeye wax la faafreebo afkaarta dunidan rogtay dowladuna wuxuu leeyahay carabta idaarat musannafat adabiya wax la yiraahdo waa la baara waa la fiiriyaa waa la faguraa wixii xun waa laga saaraa wixii fiican baa bulshada loo bandhigaa dowladdu waa inay ka shaqeysaa naftigeedu waa in ay arrimahaasi ku foogan tahay ra'yiga ilaalisaa hay'adda culimada Soomaaliyeed waxa weeye la xoojiyaa culimada dhan la isku keenaa hadiyo goor dadka u bayaamiyaan wuxuu xaq yahay waayo nuqsaan ama gaabis ka yimaada xagga culimada ayaa mararka qaarkood waxay keeni kartaa inay dhashaan afkaarta noocan oo kale ah okay mudane wasiir waxaa jiray maalmo ka hor qoraalaad ku qortay baraha bulshada oo runtii falcelin badan dhaliyay oo aad si maldahan aad ku sheegtay dad odayaal ama ganacsato ah inay wada shaqayn la leeyihiin nimanka hadda lala dagaalamayo qoraalkaas maxaad ka leedahay waa runta maxamed qoraalkaas waa u jiray waan sheegay nin hadalkiisa ka labtana miihi runtaana weligay ku tagnaan doonaa sababta aan u iri baan rabaa markii aan kuu sheego way jireen waxaa jira nin garaada oo reerkeenna oo isin ah ee nin kaloo ganacsada ah labadaasi waxay ku lug leeyihiin argagixiso maxaa sidaa u iri ninka isinka ahi oo garaadka ahi dowlad dariska ah baa lagu xiray bishii maarso waxaa la soo daayay bishii juun dhammaadkeeda la soo daayay
waxaa lagu soo eedeeyey inay sheer leeyihiin oo ay wax iskugu jiraan nin bakistaani ah oo dunida oo dhan raadinayso mudduu xirnaa markhaatiyaal bay leedahay isimo reer butaana arrintiisa galay soo ogaaday xaqiiqada inay waxaan wax ka jiraan ninkaasi wuxuu soo fakaday qalalaaso baa dowladda dariska ka dhacay qabiil oo gudahooda ah ninka ganacsadaha ahi aan ku tuhmayo waxaan inuu sameeyey ayaa wuxuu ka shaqeeyey ninkaas soo fakiyey oo ka soo saaray xabsiyada dalkaas dariska aan nahay kana soo dejiyey magaalada Boosaaso wuxuu saa u sameeyey maxaa marka saa ugu eedeeyey hadalkaygu inuu cadaadaa la rabaa ninka ganacsadaha waxaan yidhi nin dhuxul ka ganacsan jiray buu ahaa xaqiiqada saan la soconno anigu nin weyn baan ahay saa sheegaysay jaamacado shahaadihii ugu sareeyay ka soo qaatay siyaasiyan siyaasadda meeshii ugu sareysay ka gaaray hadalkaa inaan ku dhurto aan dhaho iskama oran ninka ganacsada waxaan ku eedeeyay inuu dhuxusha ka ganacsan jiray dhuxusha qofka ka ganacsadana ama gubana iyo qofka dad nool dila waxay ku kala duwan yihiin kaliya noole caqli leh buu dilay qofka argagixisada oo buuraha calmiska jooga qofka dhuxusha gubaana nooluu dilay oo iskoolka saan ognahay dugsiga hoose ilaa dugsiga sare maadat al-axyaa nabaataadka dhirta ka shakeysaa hadda ka hor waxaan xusuustaa anuu Suudaan joogaa waxaan akhriyay journal al-Arabi waxaa ku qornaa marka Amazonka Latin America waxaa ka qarxay dab waxay ciwaan ugu dhigeen ri'at al-caalam tahtariq sanbabka adduunka oo gubanaya bay ciwaan uga dhigeen beentood macluunkooda waa sax waayo annaga oxygen baan qaadanaa nadiif ah waxaan sii daynaa thani oxide al-carbon thani oxide al-carbon ee talawuthka adduunka ka jiro oo dhani waxaan nuuga noolaha dhirta ahaan nuugta markaasi oxygen fresh aan siisaa marka waa sanbabkii adduunka ninkaasu taasoo ka qayb qaatay anigu marka mid baan la yaabay dadyo far badan baa waxa ay soo qoreen reerkayga ba argaxiso ku sheegtay xaasha lillah reerka aan ka dhashay waxa la yiraahdaa Cabdi Koombe Kablalax jambeel bay ku magac dheeriyeen Soomaali taariikhda bahal dahabay kaga jiraan waxay la diriri jireen waligood afkaarta ku racan dad muslima turuq suufi ah la yaqaan xataa xilliyada kamida uu martiyay Sheekh Cali Majarteen buunigii weynaa ee aan ognahay dacwada iyo kaalinta uu ka qaatay Sheekh Cali wuxuu aaday baro buugiisana aqriyo oo jaamac Cumar uu ka qoray laba sababood baan baro ku doortay yiri koow inay tahay magaalo ganacsi labo inay ku nool yihiin dad xalaal quudata ah dadka noocaasaan ka dhashay ma ogolaan karo marka maanta dambiile dhagar qaba ahi inuu reerkayga magac qabiil u soo huwado waa tan ka dagaalamaya weeye marka Sheekh Cali Majarteen saas ku sheegay 2012 Oxford University waxay soo saartaa journal la yiraahdo Oxford University Press waxay qordhay dhambaal ay kaga sheekeynayso magaalooyin dhowr ah Boosaaso Hantaara Buruc Qandala iyo Caluula waxay ku sheegtay Buruc waxay tiri magaalo ku caan ah bay ahayd ka ganacsiga ama diridda malabka ugu tayada badan adduunka dadka noocaas marka hadda aniga awayaashay waxa wax baray Sheekh Cali Majarteen waayo Sheekh Cali Majarteen wuxuu noolaa 1785 buu dhashay wuxuuna geeriyooday 1851 awayaashay waxa wax baray Sheekh Cali Majarteen oo diinka u akhrin jiray buruc ka soo koobina magaalo ganacsi ahayde maadaama Sheekh Cali Majarteen ku noolaa waxa noqotay meel dadku u hirtaano diinka alla ka bartaan dadyoogii caanka ahaa ee wax ku bartay waxa kamid ah nin la oran jiray Cali Guray waa ninka kaliya ee Soomaali ee la yaqaan wuxuu ka dhashay ninkaas qabiilka Dishiisha waa ninka kaliya Soomaali la yaqaan ee higabiya xarafka yaada ma jiro qof kale Soomaali higabiya waayo hadalku waa tixi taraab tixda yaada waa tan ugu adag oo aan laga gabin magaaladaas wax ku bartay magaaladaasi waxa ku noolaa dadku ku hiran jiray meesha dadka nasabkooda u sheegtay ahayd nin aniga awayaasha ka tirsan oo dhinta Allah naxariisto waxa la aasay 1923 waxa la oran jiray Ciise Buur min nabiyina Aadam ila yoomina hada dadka nool buu abtirin jiray waa moohibo Ilaahay bixiyo cilmiga noocaas magaaladaas ku noolaa awayaashay 16 oo adag ugu yeeyo dhalay xujaale Macaawiya la yiraahdaa
ninkaa dhintana maxaa Mucaawiya yiraahdaa nasaabka ahayo dadka sida fiican u yaqaanay waxaa wax wada baray dhammaantood Sheekh Cali ma jirtin marka magaalo noocaas bay ahayd waxay leeyihiin marka dadku ninkaasi in adeerkaa buu ahaa tolba ahaydeen nimankaasi maxaa wax uga sheegtay war tol ma ahayn anu nimankaas waayo islaamku ehelnimada siduu u sheego waa mid ku qotonta oo ku tiirsan waxa weeye fikir iyo ideolojiyad qofkaad fikir iyo ideoloji wadaagtaan nasabna wadaagtaan kaas ayaa ehelka ah laakiin qofkaad ku kor tagtaan fikir ehelka ma aha nabi nuux wiilkiisi muxuu yiri innabni min ahli ilaahay wiilkaygu ahelkayga ilaahay wuxuu uga jawaabay qaala yaa nuux innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين ولا قد جاي بالي أنا كواك من نوت مرك أهل منهن نكا جناح صدها نكا اسم كأهي ضوب أو شو جناية إنه يهي اسم باش عبد كومبي تاسوي حسوسين سامرك كنتي وحي حسوس تاريخ بعد جلسة ما أنت وان مجال ذيك شكل أنا بروع مجال النوع عصبي هيد مرك هذا كهر دبي بنتجي أبو ظبي بروح كور يستي إلى عمرك هاو ديريو runtii qof kastoo aabahay aniga saaxiib la ahaa waa waalidkay waa aabahay oo kale isinka beesha reer Cumar ee ka dhashay Sheekh Cali ma jirteen waxa la yiraahdaa baashe Cabdullaahi oo Maxamuud reer Cumarna markaan xasuusto hadee baashahaas oo de aabahay ay isku dugsi Quraan ahaayeen macaan Xasan baa wax baray garoowe markuu ay arkana uu yiri asaga ay soo saaray ninkaas waa hebsoo u yaqaan kaas wariya Nuur Jambeel muxuu ku ahaa kaas aan ku yiri waa aabahay reer Cumarna markaan xasuusto waxaan xasuustaa baashiga oo runtii waalidkay ah oo aan xurmad badan u hayay isinka iyo Dr. Saadiq inuu ay raabti u ahaayeen labadaas ninba way ugu soo dhacaa baashiga marka xataa erga naftigiisa ninka bixiyay dadku ma yaqaanaan reerkaas isinkooda baashi baa leeyahay intee ka yimi baashiga iga waramay waxa bixiyay Sheekh Cali ma jirteen sabab ku bixiyay gabigiisi bahba hadeen noqoto baha jiraanahay bihi uqayliyo jabartini ka beermaanahay wuu soo waday boqorku waa Jibraahiil anna baashigaana marka waxa bixiyay ninkaas bixiyay markii waa maastan Maxamed Qadar runtii su'aashaas qiimaha la aad weydiisay mudana wasiir runtii taariikh dheer baad nooga shay waad marqaantay oran jireen qoleen qayb ka mid ah marka waxaan rabnaa guntiga gabagabadii baan ku sii siqaynaa hadda su'aasha u dambaysan ku weydiinaya waxay tahay ma jiraan talooyin aad siinaysa dawladda Puntland la dagaalanka ila dagaalaysa argixisada talooyin aad siinaysa ma jiraan ha of course waa jiraan oo taladu qof kasta way ku jirtaa waxaan ku noolnahay waa taladu waxay u baahan tahay in la faguro la ruugo taladan la ruugini waa lagu rafaadaa taladeeda laba aan kala qaadaya mid gaar ah oo aan jihooyinka iyo cidda xiriirkeeda aan hayo oo ciidan aan u marin doono way jirtaa oo aan dadka la wadaagi doonin iyo mid guud oo aan jecelahay in aan u mariyo dawladdeeda sharafta leh hawada talada aan jecelahay in aan u mariyo hawada waxa ka mid ah la macaamilka warbaahinta dhug iyo dhegba loo lahaado see loogu lahaanaya yaan la soo bandhigin sawirada dareen kale dhiigaga dadka ma aragtay dhintay dadka duqeymada lagu laayay kuwa ay dabka ciidamada qalabka sida daraawishta dileen in la soo bandhigo ma fiicna sababtoo ah xanuunaba ka dhalan kara waayo iclaamka aqoon kasto adduunkan jira waxa leedahay akhlaaqiyad loo sameeyo hagta akhlaaqiyadka warbaahinta waxa kamid ah in la ilaaliyo dareenka dadka xilliyeeda kamid ah xataa waxaan xasuustaa nin la wareysanayay sida hadda podcastiga Sultan Films ugu wareysanaysaan nin baa lagu wareysanayay iclaami ah wuxuu ka sheekeynayay wuxuu ahaa waliba muraasil al-hurub dagaaladu ka soo warami jiray hay'addu ka shaqeynaya wuxuu ku qabsatay dagaal la iskula jiro gacanta xabad la isku tuurayo bay kaamiradu sugneed waxa ka mid ah wax tayaamo leh hala tuuro muuqaalka soo qaada maxaa dhacay waa sugunta markii la fiiriyo aragtida muuqaal waa angal yani xagashi looga baahnaa bay ka sawireen sida loogu baahnaa bay qaadeen wax kasta waa dhameystiran yihiin shucaac ma leh iftiinkoodu waa sareeya laakiin waxa la yiri waxa ka maqan mashaa'ir insaaniya dareen aadama ka maqan ma dhagaxba kaameramanka wax sawirayo soo noole ilaahay abuuray ma xabadaha isdhaafay inuu gaban karo soo kaamera laga dareemi karo halaga dareemaa maxaa la mid ah marka dadka in dareenkooda la ilaaliyo dadkan ciidan ma aha u tababaran la dagaalan argagixiso waa dad caadi ah oo shibil ah oo iskoolo iyo ciyaalo yar yar iyo haween iyo xaasas leh
marka maxay keenaan marka sawiradaasi sida khuburada dhaqaatiirtu ay sheegeen waxay keenaan waxa la yiraahdo ittirabaat ma bacda sadma xanuun baa ku dhaca qofka dadka isbitaal loo seexiyay muuqaalada markuu daawado awgood taa halka taxadaro taas oo tan marnaa hawada oo warfaafintu sawirada la baahinaya ha noqdeen labo kuwa ay hay'adaha ku shuqul kale ha noqdeen sirdoon ha noqdeen military ha noqdeen wax kale ee la macaamilaan oo ayagu haystaan iyo kuwa dadka loo bandhigo hatta sawirka markii la soo sawirayo meedka shucaac baa lagu furi jiray oo la saari jiray siday u socdaan haddii aysan ka sheekeynaya argagixisada marka ugu dambaysa u socdaan tawaxush dadkan in la bahalayo bahalla aan isku bedelno oo waxba aan diirin oo ma arad qof markuu la qabsado caadi bay la noqotaa وهذا استاذ لوجيو قف شل جاري قال إلهي نقوم كأنه نقطة لوجيو أما قاعد دقيقة واحد كيس دكتورك عادي ولا معاملة وايو وحو أركي بقلال حالة وكدوا النوع على صوم الدي لكن هذا هو أخوك عصبته تاصرت أنا كتحدرنا صور لما عامل كذا وعن كله كتحدر إن قبائل كنا هي بالشدة عن شيء هي أود أساسي جاي مضانو إلى ده هنا بدها كتحدر waxay dawladooda u qabaan han noqoto heer federaal ama heer Puntland gaar hay'adaha dawladda ugu mareen ha u sheegeen oo taasna waan u gudbin lahaa in laga taxadaro waxaan kaloo u gudbin lahaa siyaasiyiinta kale naftigooda dagaalku maalinba waa heer maanta kale nooma furna waxaan ahayn dawladaha iyaga han noqoto heer federaal ama heer dawlad goboleed inaan barbar istaagno aan dhahno waxa weeye jeeshka iyo guuleysta maalinta dagaalka soo idlaado oo nimankaasi la jabiyo ilaahay idimkii baa war noo yaal oo aan xisaabtami karnaa maxaa qalad dhacay maxaan guula gaarnay maanta isku iman karnaa laakiin dagaalku hadda socda cid kastoo hadasha oo dawladda dhalisha anuu mid ma aqaan waa suurgal inaad iga ra'yi duwantaadi cadow waan aqaan waa la arkaa maxamed iyo sultaan filmisba inaad iga ra'yi duwantiin oo leedihiin cadow ma maxaa u leh anigu xaqeega nin aniga yiri rag iska saar ashkil ahaan cadow bay yihiin وعدوغا aan la dirin argixisana wax dhaamaa ma ah waayo likulli maqaamin maqaal goob kasta ay hadal beeleeda hadalkeedu hadda ma aad iyo aad u mahadsan tahay ustaad Dr. Cabdi Fataax waa kaga mahadcelinaynaa waraysiga qiimaha badan aad nasiisay hawada waxaan idin marinaa salaan aad iyo aad u mahadsantihiin adinkuna dhegeysanaysan daawadayaashana qiimaha badan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأدوكنا آد بعد ما حصلت هاي أديك السلطان فيلم يسبق مرتجلين تأدي مرتجل سنعاون ورسك على يالك